in ka badan 20 suxufi oo kala socda warbaahinta qaranka gobolka Banaadir iyo kuwa madax banaan ayaa fursad u helay in ay ka qayb galaan tababar socon doona muddo 2 maalin ah kaasi oo kor loogu qaadayo xirfadda saxafiyiinta maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan agaasinka guud ee warfaafinta iyo amisom ayaa iska kaashanaya tababarkan agaasimaha guud ee warfaafinta gobolka Banaadir mudane Cabdullaahi Wiish oo ka hadlay furitaanka barnaamijkan ayaa sharaxaya muhiimadda tababarkan uu leeyahay wariyaasha ka qayb galaya sida aad la socotaan aniga inta aan joogay gobolka Banaadir qaybteeda warfaafinta waxaan aad iyo aad isugu taxluujinayay inaan bahda warbaahinta oo aniga aan ka tirsanahay in ay helaan waxbarasho ama ma aragtay seminaaro kor loogu qaaday aqoontooda seminaarkan sidaad u jeedaan waa seminar la rabo hadda dalkii TV iyo radio waa ka guure adduunkan la jaan qaadnay oo waxaan joognaa waqti hadda ma aragtay social media uu xoog badan yahay ka xoog badan yahayba TV-yadii iyo raadiyaashii marka sidaas daraadeed waxaan aragnay marmarka qaarkood in aan anaga waxyaalo badan aan ka fahansanayn sida loo isticmaalo warbaahinaan nahay hay'ado institutional matalna sidee marka aan waxaas wax ugu qaban karnaa wax markii la soo qoro maareeyaha macadka dawladda hoose ee Muqdisho mudane Umar Faaruq oo ka qayb galay munaasabadda furitaanka tababarkan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in macadka tababarada dawladda hoose uu ku dadaali doono sidii tababar noocan oo kala u siin lahaa wariyaasha gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir tababarkan oo agaasinkiisu lahaa waaxda warbaahinta kama ahaan waan soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa inaan kala shaqeyn doono tababarada kale iyo workshops kale qaban doonaan annagana qorshooyin ay ugu jirto kama ahaan macadka dawladda hoose oo ah macad hal sano jirsaday oo qaabishan maamulka gobolka Banaadir tababarada iyo seminaarada iyo workshopska iyo cilmi baarisyada oo workshopyada soo qabtay haddana kuwa kale qorsho ugu jiro oo kamid tahay workshopyada la sii doono waaxda warbaahinta ama dadka ka shaqeeya warbaahintu waxay kamid tahay adeegyaalka ugu muhiimsan ama awoodaha ugu muhiimsan qaran walba oo jiro ama dunida tan waxa lagu sheegaa inay tahay awoodda shanaad dad qaarkood waxay dhahan waa awoodda afraad ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir Marwa Basma Amir Jaketi ayaa si rasmi ah u daafurtay tababarkan iyadoo dardaaran u jeedisay ka qaybgalayaasha waxaan rajaynaa tababarka 2 maalin inaad ka faa'iideysan doontiin wax badan aad u gudbin doontiin saaxiibada kale oo maanta aan nasiibka aan u yeelan inay tababarkan ka soo qayb galaan idinka u noqotaan macallin waxaad qaadataan aad dib u siisaan sidoo u wada gaaro dhammaan saxaafadda dalka ka shaqeeyo dhan aadaan idinkaga mahadcelinaynaa anoo og shaqo adag inaad ka shaqaysaan 2 maalin shaqadan iyo tababarkan qaadanaysaan waqtigiina qaaliga waa idinkaga mahadcelinaa tababarka waa noo furan yahay dhammaan waa mahadsantihiin inta gacanta ka geysatay aadaan ugu mahadcelinaa. Assalaamu calaykum. Mukhtaar Aweys Xasan.